لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإبراهيم حاشي أحمد walaalyaal waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo insha allah qiso aad u xanuun badan. gabar ayaa waxay xaramka ku dhex aragtay maamo weyn oo ooyeysa gacmahana kor u taagaysa oo aan ilmada kala joojinayn. gabadhii way u timid hooyadii oo waxay weydiisay, hooyo maxaa ku helay oo sidaan ugu ooyeysa? waxayna ugu jawaabtay hooyadii, hooyo waxaan ahaa gabar, waxa ay guursaday nin, kadib waxaan wada noolayn muddo 8 sano ah, waxna maanan u dhalin muddadaas. kadib wuxuu guursaday gabar kale oo alle subxaanahu watacaala uu ka siiyey wiil. waxaan ahaa intaa kadib mid aad u qalbi jaban oo aad u murugaysan. 2 sano kadib ayaa waxaa dhacday in ninkaygii iyo xaaskiisii labaad ay safar u baxeen, waxaana laygaga tagay wiilkii yaraa ee ay dhaleen. markii ay sii baxayeen ayaa waxaan go'aansaday inaan wiilka dilo oo gowraco, laakiin intaanan taa ku dhaqaaqin ayaa waxaa ii soo dhacay telefoon kaas oo laygu sheegay in ninkaygii iyo xaaskiisii kaleba ay shil gaari ah ku geeriyoodeen. kadib waxaan ku fakiray in aan wiilkii yara aan silciyo oo uu sidac u dhinto. waan garaacay, weliba garaacays uu la mirdaro soomay, weliba isagoo ku dhawaaqaya hooyo hooyo. waxaan ku dhex tuuray maqsinka isagoo miirdoor soomay. wuu soo naaxay saacado kadib isagoo leh hooyo caano. haddana mar labaad ayaan garaacay ilaa uu sidoo kale haddana mar kale miirdoor soomay. waxaan ku soo xiray maqsinkii mar labaad. waxyar kadib waxa ay qabatay hurdo. waan gamcay, laakiin waxaan arkay riyo aan ka seexan waayay. riyadaas waxaan ku arkay anigoo lee cadaabayo, qalbigaygana lagu shubayo dhagaxaan naar ka samaysan, gacmahaygana lagu qaraacayo burar. mar qura ayaan soo booday, waxaana maqlay saqiirkii oo cod hoose ku leh hooyo biyo, hooyo biyo. anigoo naxsan ayaan biyo siiyey oo caano yarnaa u sameeyey. muddo kadib wiilkii yaraa wuu koray, wuxuuna ii haystay weligii inaan hooyadiis ahay. waan guursaday tiro 3 nin oo kala duwan, laakiin wax awlaad ah alle subxaanahu watacaala igama siinin. hadda waxaan nahay 68 jir, isagiina waa 32 jir. maanta qofka xajka i keenay waa isaga, wuxuuna i leeyahay kelimadii markii aan garaaci jiray uu iigu yeeri jiray ee ahayd hooyo hooyo. waxaan la ilmaynayaa sida aan yeeli jiray xanuunkeeda iyo sida uu ii wanaajiyey maanta oo aan cid kala haysan iyo anigoo u sheegi karin sida aan ku samayn jiray markuu ahaa saqiirka. yaa allah, weligaa saqiir yara xasidin ama qof bini aadan ahba ma ogid bari sidaad isku noqon doontaane. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu hooyooyinkeena noo xifdiyo. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.